gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sool Cabdi Yuusuf Ismaaciil ayaa ka hadlay xaaladda doorashooyinka ee gobolka Sool mar uu siiyay waraysi TV-ga caalamiga ee Soomaali News ayaa waxa uu sheegay inay jiraan waxyaabo ay ku suuligsan yihiin xisbiyada kale ee tartanka kula jira dhanka doorashooyinka. haddaan nahay xisbiga wadani ee gobolka Sool komishinka oo doorashooyinka oo imaatinkii uu gobolka Sool soo galay oo la rabay inuu ka saddexda xisbi qaranba u yeero oo naga wada qayb geliyo waxyaalaha jira degmooyinka iyo arrimahooda kala tashigooda ilaa iyo hadda waan sugaynaa ma hayno wayna dhaafeenba gobolka baydoodii arrintaas waa khalad laga galay daftarkiisa inuusan ogeyn goobaha laga shaqeynayo ama loo asteynayo gobolka iyo degmooyinkiisa in aan wax labada xisbi ee kale lagala socodsiiyay jirin eedda koowaad waxa weeye waxa iska leh komishinka hadda waxaan uga digaynaa wixii hore way dhaceen waxaan uga digaynaa shaqaalaha ka shaqeyn doona goobaha dalka ama gobolka iyo degmooyinkiisa in ay yihiin shaqaale nidaamkii sidii loo rabay imtixaankooda iyo isla ogaanshahooda iyo balanskooda degmooyinka mid walba inaan wax ka ognahay kulmiye waxaanu ku eedaynaynaa isagana wuxuu wadaa campaign siyaada ah 3 bilood muddo gaadha campaignkaasi waxa weeye ololihii doorashooyinka oo aan weli bilaaban buu wadaa sida aad ogtihiin muddada 3 bilood oo wasiiro iyo xildhibaanaha isdhinac yaacayay dhinaca kale mar aan wax ka weydiinay waxa ku kaleefay inaan marnaba cagta soo dhigin gobolka Sool gudoomiyaha guud ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro isagoo shacabka gobolka Sool ka doonaya cod ugu soo baxo tartanka madaxweynenimo ee sanadka soo socda lagu qaban doono guud ahaan gobolada. gudoomiyuhu muddo fog baa ugu dambeysay waan u maleynayaa muddooyinkan ma iman waana jirtaa waanuna dalabnay inuu yimaado runtii gudoomiyuhu 3 bilood ee ugu dambeeyay hawlo qaranka iyo xisbiga mid walba abuu dibadaha ayuu u badnaa laakiin waa runta ma iman gobolka annaga laftiga ku eedayna xisbi ahaan laakiin hawsha ku badnayd wuxuuna leeyahay waxaan rajaynaynaa wiilka soo socda inuu yimaado gobolka isaga iyo wafdi u wata gudoomiyaha guud ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaa la ogyahay inuu dhammaan gobolada oo dhan u soo maray horena u tagi jiray weligii intii siyaasiga ahana u tagi jiray marka laga reebo gobolka Sool isagoo hadda gudoomiyaha guud ee xisbiga wadani weligiina aanu imaan cagna soo dhigin gobolka Sool ma laga yaabaa xilliga doorashada inuu yimaado inuu dhaho shacabka gobolka Sool waxa rabaa inay codkiina siisaan si aan idinku noqdo madaxweyne iyadoo la ogyahay dhammaan mas'uuliyiinta kale xisbiyada kale inay yimaadaan gobolka Sool mar walba iyagoo shacabka dareenkooda la qaybsanaya arrintaasi maxaad ka oranaysaa waa yimaadeen waa run xisbiyada kale laakiin waxyaalaha aanu ku eedaynay ka mid tahay xisbiyada kale campaignka olole ee aan weli bilaaban ay u ololeynayaan campaignka doorashooyinka soo socda ee aan la gaarin bay ka mid tahay taasi xisbiga wadani iskama waxaasan qabanaya ma yiraahdo isagoo aan run sheegayn taasi olole campaign oo siyaada bay ahayd laakiin waxaan rajaynaynaa xilliyadu hadday soo dhawaadaan gudoomiyaha iyo xisbiga madaxdiisa sare ba inay yimaadaan Weli Ismaaciil Haradigeed Soomaali News TV la saxanad